السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا أبشر حسن شتيفتم أنا جو أهمنا محمد عبدي دمان ولاله سبسكرايب كنو ساري لايك كنو ساري aad baan uga mahad celinayaa inta dambe oo nagu soo darsami doontana ayagana sidoo kale walaalayaal janalkan insha Allah waxaan idinkula wadaagi doonaa sidii aan horey u sheegayba waxyaalo badan oo ku saabsan koriimada caruurta iyo maxaa la yiraahdaa cilmiga oo psychology-ga iyo maxaa la yiraahdaa yani cilmi nafsiga iyo cilmiga oo bulshada oo runtii muhiim u ah mujtamaceena Soomaaliyeed waxaan ka soo xigtaa dad buugaag ka qoray ama maxaa la yiraahdaa article ka qoray oo aan isku dayo markaa inaan la wadaago maxaa la yiraahdaa dadkeena Soomaaliyeed sidoo kale wixii aniga khibradeyda ah maadaama aan hooyo ahay caruurteyda qaar aad u waaweyn yihiin hadda dad waaweyn noqdeen aan ka soo maray wadankan iyo wixii wadankeena laftirkiisa ma aragtay aan kusoo dhaqmi jirnay ama qaabka aan wax u bedeli karno si generation cusub oo caruurteena oo anaga horumar ka fiican kaan gaarnay ah inay gaaraan aan rajaynayo marka insha Allah programmada waan soo badin doonaa walaalahana insha Allah waxaan rajaynayaa inay nagu xirnaadaan mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaan walaalihii janalkeena subscribe-ka noo saaray nana soo booqday waa uga mahad celinayaa adduunyadan aan ku noolnahay ummadaha kale TV-yo iyo waxay u samaysteen janaalo ama programmo mujtamaca uu maaragtaa kusoo bandhigi karo qof walbaba hobbigiisa iyo waxa mawhibadiisa ah annaga wax kaliya aan haysana maanta haddaan Soomaalinahay waxa weeye YouTube-kan walaalo badan qof walbaba wixii asaga uu jecel yahay kusoo bandhigaa waxaan u arkaa runtii anigu wax fiican aniga shakhsi ahaan programka aan wato ama aan rabo inaan mujtamacayga la wadaago waxa weeyaan hiigsiga iyo hadafka nolosha program la yiraahdo oon dhowr video ka soo geliyay oon kaga hadlayo iyo program ku saabsan caruurta oo afka qalaad resilience lagu yiraahdo yani kartida ama awoodda shakhsiyanka ah nafsiyanka ah ubadka loo baahan yahay in lagu barbaariyo si uu ubadkaasi uu u noqdo qof isku kalsoon uu ku soo koro kalsooni iyo dadnimo uu hadhow dhibaato walba oo la soo gudboonaato uga bixi karo maadaama aynaan ubadkeena meel walbaba anagu aanan gacanta qaban karin aynaan la joogi karin ama wadankii ha joogo ama qurbaha ha joogo ilmihii dhibaatooyin badan baa hadda maaragtaa soo food saaray awalna hore u jiray laakiin mujtamaceena uusan ku baraarugsanayn marka anagoon hadda maxaa la dhahaa qofna eedaynayn cidna aan maxaa la dhahaa ii sheeg yani aanan anaga iscambaaraynayn baa waxaan rabnaa insha Allah janalkan inaan walaalaha kula wadaagno sida ugu fudud ee ilmahaaga aad ugu barbaarin kartid inuu noqdo ilmo naftiisa ku kalsoon ilmo aan lagu xadgudbin garana kara marka lagu soo xadgudbo ilmo kala fahmi kara maaragtay waqtiga stresska uu noloshiisa kusoo saacido qaabka uu asagu isu difaaci lahaa nafsiyan difaaca waayo qofka bini aadanka ah jirka wixii uga dhaca waad aragtaa haddii ilmahaaga jirka wax looga soo dhufto waa aragtaa laakiin niyadiisa waxa ku dhaca ma aragtid even waxaa dhici karta inuu guriga ilmihii ay maaragtaa uga dhacdo kelmado maaragtay aan laga fiirsan in marmarka qaarkood lagu yiraahdo xataa hooyadu ay tiraahdo ama waalidku uu yiraahdo taasna ilmihii niyadoodii ay jabinayso in hoos u dhigayso waxyaalo badan baa ka mid oo hadda anaga basiid noola muuqda laakiin ilmaheena hoos u dhiga ilmuhu asagoo yar inuu yeesho mawhibo ama hadafka noloshiisa ama hiigsiga noloshiisa uu fahmi karo oo aynu ku barbaarin karno ilmo ma aragti dheer leh ilmo rabitaan fog leh ilmo yaqaana qaabka uu dhibkiisa asagu u xalin karo wixii asaga ka tira bata uusan xalin karin garta inuu adigu kula yimaado asagoo aan kaala baqin kalsooni waalidka iyo ilmaha dhexdooda inay ka jirto ilmahagu inuu kugu tiirsanaado inaad ku tiirsanaatid in aad ilmahaaga mar walba ku dhiirigelisid
inuu yahay qof qiimo leh, inuu yahay qof karti leh, inuu yahay qof gaari kara waxa uu maaragtay uu niyadiisa gashto haddii uu rabo waxa inuu ka mara dhaliyo. in ilmaha iyagoo yaryar aynu ku barbaarino, waayo xaqiiqdu waxay tahay ilmaha maanta Soomaaliya tuulada ugu yar ku nool iyo ilmaha wadankan Jarmalka Berlin ku nool waa global, waa wadan adduun waxay ku nool yihiin global ah. ilmaheenu marka in ay hiigsan karin meesha ilmaha Jarmalka ah ama ilmaha ku nool Berlin uusan hiigsan karin, taasi waxay keenaysaa generation to generation inaan weligan ahaano ummad iyaga la hogaamiyo ee aan waxba hogaaminayn. diintu waa meesheeda, dad muslim aynu nahay, laakiin xaqiiqdu waxay tahay mar walbaba gacanta sareysa iyo gacanta hooseysa. gacanta sareysa inuu yiri ilaahay way khayr badan tahay. dad waxaynu nahay weli u baahan dad kale ama u soo cararaya ama u soo honqal taagaya. taasna waxaa keenaysa in aan ilmaheennii aanan loo korin sida ilmahan kale ee u koraan, oo ah in ilmahan lagu barbaariyo inuu qofku asagu hadaf yeesho, inuu qofku asagu meel gaaro, inuu qofku asagu kalsooni abuurto, inuu qofku wax hor istaagi kara adduunka aanan jirin, aan ilaahay ka ahayn, hadduu asagu naftiisa aamino. waxaa kaloo jirta sheeko runtii aan intii muddo ah hadda waday, welina bilow joogta runtii, oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ilmaha yarka la soo darsa iyo maxaa la yidhahdaa waxa ay ku yeelato, yani raadka ay noloshooda ku yeelato iyo qofku siduu uga bixi karo, oo arrintaas resiliency-ga ah ku saabsan karsida qofka. sheekadaas sheekadii guuleed baa la yidhaahdaa. badanaa sheekooyinka qisooyinka adduunka laga sheekeeyo ama bugaagta laga qoro dabcan wax unbay ku salaysan yihiin, oo sheekadu maaha wax la iska aliftay markii ay tahay sheeko moraal xambaarsan. waa sheekooyin dabcan dhacay qaybtood, qaybtii kalena lagu daro lagu mal-awlifay. sida sheekooyinka science fictionka oo kale ma aha taasi, oo sida maxaa la dhahaa Harry Potter oo kale waa sheeko oo maxaa la dhahaa khayaali ah. sheekooyinka khayaaliga marka laga soo tago, xataa markaad cartooniska fiirisid, waxyaalo badan oo waxaa laga sameeyaa qisooyinkii nebiyaasha oo kale ka sameeyaan, oo nebi muuse iyo nebi yuusuf iyo ay ka mid yihiin. caruurta ayagoo yaryar baa la tusaa dad ay ku dayan karaan. gurigoo kale laftirkiisa, waalidkoo kale waa inay ku dayasho mudan yihiin. waalidku waa inaysan caruurtooda waxaysan u sameynayn ay ka ballan qaadin, ama ay iyagoo waalidkii oo been sheegaya aysan arkin caruurtii, si cunugii iyo waalidkii xiriir joogta uu uga dhexeeyo iyo kalsooni. waayo ilmuhu ficilkaagu ku dayanayaayo ku dayan mayo maxaa la dhahaa waanada. annagu waxbaan waaninaa, intaa waxbaan u sheegnaa caruurta, waan waaniyaa idhahdaa, laakiin waanadii waxba iiga dayan mayo cunugii hadda aniga ficilkayga khaldan yahay. marka insha allah barnaamijkeena arrimahaas oo dhan uu ku saabsan yahay, ma rabo inuu igu sii dheeraado. dhammaan walaalaha mar kale waa u mahad celinayaa. insha allah aynu isku tiirsanaano, aynu kala faa'iidaysano. aad baan usoo dhaweynayaa walaalahoo dhan. insha allah ayagana waxaan jeclaa inay janaaladooda igu soo dhaweeyaan. السلام عليكم. انتي جنالة طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.